Mid ka mid ah musharaxiinta ugu shacbiyadda badan dalka Soomaaliya, madaxweynihii sagaalaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ra'iisul wasaare dalka soo hogaamiyey xilli adag, diblomaasi ka tirsanaa safaaraddii Soomaaliya ee dalka Mareykanka, Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo hogaamiye shacbiyad badan ku leh geyga Soomaaliyeed. Haddaba maxaynu ka naqaanaa sooyaalka taariikheed iyo midka siyaasadeed ee hogaamiyahan? Ku soo dhawaada muuqaal ku saabsan taariikhda hogaamiye Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo. Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxa uu ku dhashay caasimadda Muqdisho sanadkii 1962. Waxa uu dugsiga dhexe uga baxay iskuulka Kowda Luulyo, kan sarena waxa uu ku qaatay dugsigii farsamada gacanta ee La Foole. Farmaajo waa aqoon-yahan Soomaaliyeed oo muddo dheer deganaa magaalada New York ee dalka Mareykanka. Wuxuu inta badan noloshiisa ku soo qaatay qurbaha, gaar ahaan dalka Mareykanka. Farmaajo waa aabbo dhalay 4 carruur ah, wuxuuna shahaadada heerka koowaad iyo heerka labaadba ka qaatay jaamacadda New York ee ku taalla magaalada Buffalo sanadihii 1997 ilaa 2000. Shaqooyin kala duwan ayuu soo qabtay oo ay ka mid tahay dhanka xuquuqda aadamaha, wuxuuna agaasimo guud ka soo noqday hay-ad u dooda xuquuqda bulshada sanadii 2002. Bishii Oktoobar 14 sanadkii 2010, Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxaa loo magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, isaga oo bedelay Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo xilligaas iska casilay xilka, ka hor intii aysan isku dhicin madaxweynihii xilligaas Shariif Sheekh Axmed. Bishii Oktoobar 31, 2010, xubnaha baarlamaanka ayaa cod aqlabiyad ah ku ansixiyey ra'iisul wasaare Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. 50kii maalmood ee ugu horreysay xafiiska ra'iisul wasaaraha, Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxa uu ku guuleystay bixinta mushaaraadka ciidamada iyo shaqaalaha dowladda. Hase ahaatee, dhowr bilood kadib, waxaa soo ifbaxay khilaaf u dhexeeyey ra'iisul wasaare Farmaajo iyo madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo afhayeenkii baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh oo salka ku hayay qabashada doorashada. 19 bishii Juun sanadkii 2011, ra'iisul wasaare Farmaajo waxa uu iska casilay xilka kadib heshiis lagu soo gaaray Kampala. Farmaajo ayaa khudbaddii uu xilka uga degayay ku sheegay inuu go'aankaasi u qaatay danta dalka iyo dadka awgood. Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya 8 Febraayo 2017, kadib markii uu ka adkaaday Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed. Wareeggii labaad ee doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayuu ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo kaga guuleystay cod aqlabiyad ah. Farmaajo ayaana helay codadka 184 xildhibaan. Xasan Sheekh oo ahaa madaxweynihii xilligaas ayaa helay 97 cod, halka Shariif Sheekh Axmed uu isaguna helay 46 cod. Waxaa loo gudbi lahaa wareegga saddexaad maadaama midna uusan wareegga labaad ku helin 219 cod. Si kastaba ha ahaatee, Xasan Sheekh Maxamuud oo wareegga saddexaad kula tartami lahaa Farmaajo ayaa sheegay inuu tanaasulay, wuxuuna sidaas madaxweyne ku noqday Farmaajo sanadkii 2017 markaasoo xilka loo dhaariyey. Bishii February ee sanadkii 2021 ayuu ku ekaa muddaxileedka Farmaajo, balse ma suurtagelin inay qabsoonto doorashada Soomaaliya ee baarlamaanka iyo madaxweynaha. Sanad kadib 15 May sanadkii 2022 ayaa lagaga guuleystay xilka madaxnimo ee dalka Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo, waxaana mar kale madaxweyne ka noqday dalka Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu ahaa madaxweynihii xilka ku wareejiyey Farmaajo sanadkii 2017. Xilligaas oo dalka Soomaaliya uu sameynayay kobac xagga dhaqaalaha, horumarka iyo dowladnimadaba marba marka ka dambeysa. Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxa uu ku astaysan yahay aadna loogu xasuusan doonaa joogtaynta mushaaraadka ciidamada iyo shaqaalaha dowladda. Arrintan ayaana ah wax xagga hore kaga xusneyd ololihii doorashada ee uu Farmaajo u galay dib u doorashadiisa. Bishii Abriil ee sanadkii 2011 ayuu Golaha Shacabka ansixiyey 2 sano oo muddo kororsi ah oo loogu daray hay-adaha dowladda oo uu ka mid yahay madaxweynaha, taas oo keentay khilaaf siyaasadeed iyo gacan ka hadal gaaray heer cabsi leh oo dalku wajahay. Balse heshiis la gaaray ayaa sababay doorashadii dhacday 15 May sanadkii 2022, markaasoo mar kale xildhibaanada labada aqal ay xilka madaxnimo u doorteen Xasan Sheekh Maxamuud. Farmaajo oo astaan u tahay inuu yahay madaxweyne aamusan islamarkaana aanan inta badan ka hadlin arrimaha siyaasadeed ee dalku wajahayo, waxa uu mar kale musharax u yahay kursiga dalka looga arrimiyo. Dad badan ayaana la dhacsan habmaamulka madaxweyne hore Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo.